Angola Kante ayaa noqday xidiga loogu jecel yahay kubadda cagta dunida. Xidiga gaaban ee ku guuleystay dhacdada Mundial ayaa diiday in lacag xuquuqda muuqaalkiisa loo soo marsiiyo shirkado ka baxsan England si uu ugu badbaado in canshuur uu ku bixiyo Ingiriiska, waxaana taas beddelkeeda uu sheegay Chelsea in uu kaliya doonayo mushaarka caadiga. Arrinta ugu dambaysa ayaa cadeen u ah sababta ay dad badani 27 sano jirkan u arkaan shaqsigii ugu fiicnaa kubadda cagta ahna shaqsigii ugu daacadsanaa. Sirtii uu footballers ka soo saartay go'aankii uu Kante ku diiday in uu qaato lacag canshuuraad aan lagu qaadan. Go'aankii Kante ayaa noqday mid cajiiba. Dabcan ma maqlaysid Kante oo sidaas isu tilmaamaya maadaama xishood iyo afgaabni lagu yaqaano. Ninkii sameeyay taariikhda laba horyaal oo isku xiga kula guuleystay naadiyada Leicester City iyo si lamida naadiga Chelsea. Waa maxay sababta Kante loogu jecel yahay dunida kubadda cagta? Waxaan eegi doonaa 6 waxyaabood uu sameeyay oo jecleysiyay jamaahiirta kubadda cagta. Tan koowaad inuu diiday in uu la dhunto canshuurta. Inkastoo haddii lacag uu ka qaato Chelsea loo marsiin lahaa shirkado ku yaala meelo ka baxsan England, ay Kante u baanqan lahayd 870,000 oo gini oo canshuura sanadkii. Haddana xidiga reer Faransa ayaa diiday in uu ku kaco khiyaano dhanka canshuurta. Go'aanka uu Kante ka qaatay ayaa lagu soo bandhigay sarfaafiyaha footballers, waxa uuna ku mutaystay ammaan badan iyo in uu yahay shaqsi daacada. Laakiin waxa ay muujinaysaa sida uu ugu dhegan yahay diintiisa Islaamka oo aanu ogoleen khiyaano iyo wax isdaba marin. Tan labaad, in uu koobka adduunka kor u qaado ayuu ka xishooday. Steven Inzonzi, laacibka dhexe ee kooxda Jallaroos, ayaa arkay Kante oo taagan meel gadaal ah iyadoo xidigaha xulka Les Blueska ama Faransiiska ay u dabaaldegayaan hanashada koobka adduunka. Kulankii finaalka Moscow ee dhacay bishii July sanadii 2018. Inzonzi ayaana koobka ka soo faramaroojiyay ciyaaryahan Florian Thauvin si uu Kante sawir isaga qaada koobkii uu gacanta ka geystay in France ay ku guuleystaan taariikhda markoodii labaad kadib dhacdadii 1998 oo ay ciidooda ku martigeliyeen. Ninka xishoodka badan ee Kante ayaa xitaa u baahday shaqsi kale oo koobka u keeno si uu isugu sawiro. Kante oo ciyaaray kulankii finaalka ee 4-2 ay kaga badiyeen dhigooda Croatia isagoo calool xanuun qaba ayaa sidoo kale weydiistay ciyaartoyda Faransa inay isdejiyaan markii ay bilaabeen in ay si qaylo ah magaciisa ugu dhawaaqaan. Tan saddexaad, in uusan haysan gaari qaaliya. Inkastoo Kante xidigaha isku kooxdihiin garoonka tababarka ay ku yimaadaan gawaari raaxa misna qaaliya, Kante waxa uu wataa gaari celis ah oo lagu magacaabo Mini Cooper oo uu iibsaday markii uu ku biirayay Leicester City 4 sano ka hor. Xilli ciyaareedkii hore waxay isku dhaceen gaari xamuul ah, laakiin weli gaarigiisa Mini Cooperka jugta gaartay oo ay ka muuqato ayuu tababarka ku yimaadaa maalin walba. Kante oo ka hadlay in uusan jecleen gawaarida qaaliga ayaa yiri, "Ma hay qof jecel gawaarida qaaliga. Markii aan yaraa kuma aanan hamiyi jirin gaari ama wax la mida." Midii afraad, ninka aan dadka iskala weyneyn. Geesiga Chelsea ee Kante ayaa sheegay tareenkii Eurostar ee u qaadi lahaa Paris oo qoyskiisa ay degan yihiin, waxaana taas beddelkeeda uu ka hoyday guri dad kale ay leeyihiin uu habeen fiican kula qaatay. Kadib kulankii Cardiff ee bishii September, Kante ayaa ka dahay waqtigii tareenka maadaama uu yahay shaqsi si weyn ugu dhegan diintayna quruxda badan ee Islaamka. Wuxuu taleefankiisa ka raadiyay masjid u agdhow goobta uu joogay si uu salaada cishaha u oogo. Taageerayaal iyagu masjidka ku tukanaya ayaa aqoonsaday Kante, waxa ayna ku martiqaadeen casho. Waxay la ciyaareen ciyaar gacmeedka FIFA iyaga oo sidoo kale isla daawaday barnaamijkii Match of the Day oo Kante shaqsi ahaantiisa looga hadlayay. Tan shanaad, waxa uu naxariistaa taageerayaasha kooxaha kale. Kante oo ah shaqsi naxariis badan, waxaa taas la arkay markii uu la kulmay taageero Arsenal kulan ay Chelsea 3-2 kaga adkaatay Gunners ciyaar ka dhacday Stamford Bridge bishii Agoosto sanadii ina soo dhaaftay ee 2018. Taageeraha ayaa sawir u la galay Kante waxa uu soo dhigay tweet wuxuuna ku soo qoray,
waxaan goordhow la kulmay ninkan waxaan u sheegay inaan ahay taageere Arsenal islamarkaana aan ka caraysanahay natiijada kulankii isbuucan laakiin waa uu ii dhow la cadeeyay wuxuuna igu yiri raalli ahow alla muxuu nin rag yahay midda lixaad ma jecla amaanta badan ciyaaryahan Kante kadib markii Faransa 3-4 ay kaga badisay Argentina wareegga 16 ee koobka adduunka ee lagu qabtay Russia. Kante ayaa hoos u dhigay ammaan weyn oo loo soo jeediyay xidiga kale ee qadka dhexe ee isla garabka kala ciyaarayeen Plash Matuidi ayaa yiri N'Golo Kante waa nin yar laakiin waxa uu celiyay awoodda khayrul caadiga ee Lionel Messi laakiin Kante ayaa ku jawaabay maya si wadajir ayaan u sameynay si koox ahaan ayaan u celinay Messi iyo qarankii Argentina.